Harriet Tubman waxay ku dhalatay adoonsi adag oo ka jiray Maryland qiyaastii sanadkii 1820kii, balse nolosheeda ma aysan aqbalin silac iyo adoonnimo. Inkastoo ay la kulantay dhaawac culus oo madaxa ah caruurnimadeedii, taas oo saameyn ku yeelatay caafimaadkeeda inta nolosheedii ka dhigneed. Sanadkii 1849kii ayayna go'aansatay inay ka baxsato adoonsiga ayada oo kaligeed u safartay dhul ay xornimo ka jirtay. Talaabadaas ayaana noqotay bilowga halgan weyn ee u gashay badbaadinta dad kale oo adoonsiga ku jiray kadib markii xornimada ay heshay. Waxay isku bedeshay astaan geesinimo iyo hoggaan ayadoona noqotay hogaamiye muhiim ah, shabakad qarsoon oo dad badan u horseeday xorriyad. Waxay marar badan ku noqotay koonfurta si ay u badbaadiso qoysas iyo dad badan oo rajo lahayn, ayadoo halis gelinaysa nolosheeda si ay kuwa kale u badbaadiso. Intii lagu jiray dagaalkii sokeeye ee Mareykanka, waxay sidoo kale u adeegtay sirdoon iyo howlgal military, taas oo ka dhigtay haweeney taariikhda ku reebtay raad aan marnaba dabar go'ayn. waa idin salaamay daawadayaal, magacaygu waa Xaliimo Daawud. Inta gudaha u galin warbixinteena maanta waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ii dhacdo channelka, laagtana ii saarto. Channelkan waxaad ka helaysaa xogaha sirdoon, dambiyada qarsoon iyo xogaha caalamka. Markaan aan inoo bilaabo warbixinteena maanta. Harriet Tubman waxay ahayd haweeney Mareykan ah oo ku dhalatay adoonsi ka jiray gobolka Maryland qiyaastii 1820kii, balse ka baxsatay adoonsi 1849kii ayadoo u socdaalaysa waqooyiga si ay xorriyad u hesho. Kadib markii ay xornimada heshay, waxay sameysay shabakad qarsoon oo dadkii adoonsiga ku jiray u horseedi jirtay xornimo, ayagoo galabkii ama haweenkii u baxayeen meelaha ammaanka ah ee waqooyiga. Waxay ku noqotay koonfurta marar badan si ay u badbaadiso xubnaha qoyskeeda iyo dad kale oo adoon ahaa, iyadoo la sheegay inay hogaamisay dad badan oo adoomo ahaa ilaa meesha xorriyadda, iyadoon aan wali cidna lumin safarka, taasoo muujinaysa geesinimo iyo hufnaan aan caadi ahayn. Waxay lahayd 8 walaalo ah, laakiin nolosha adoonsiga awgeed qoyska ayaa kala lumay. Markii jirtay 5 sano waxaa loo dhiibay inay daryeesho ilmaha yaryar. Halis badan ayaana ka jirtay, marna waxaa lagu garaaci jiray xarig. Dhaawac adag oo la xasuusto markii ay ahayd qiyaastii 12 jir, waxay ka hor istaagtay kormeeraha adoonsiga inuu ciqaabo qof kale oo adoon ahaa. Natiijadiina kormeeraha ayaa miisaan bir ah ku garaacay madaxeeda, taasoo ka dhigtay dhaawac joogto ah iyo dhibaatooyin caafimaad ee nolosheeda. Sanadkii 1849kii markii ay heshay warar sheegaya in la iibin doono, waxay go'aansatay inay baxsato iyadoo aanan garab lahayn. Dhul dheer ayayna u baxsatay. Bilowga tareenka qarsoon, laakiin nolosheeda halka kuma eg. Waxay bilowday inay ku noqoto dhulka koonfurta si ay u hogaamiso qoyska iyo adoomo kale oo rabay xornimo, ayagoona isticmaalaya shabakada qarsoon. Tareenka qarsoon ee nidaam sir ah. Shabakadan ma ahan tareen dhab ah, laakiin waa shabakad guryo ama meelaha ammaan ah oo dadka qaxaya adoonsiga laga caawiyo si qarsoodi ah, ayagoo la adeegsanayo calaamado iyo isku duwid bulsho. Safaro khatar badan intii u dhaxaysay 1850kii ilaa 1860kii, waxay sameysay ugu yaraan 13 safar oo halis ah si ay ugu soo celiso adoomo badan oo raadinaya xornimo. Taariikhyahano waxa ay rumaysan yihiin dadkii ay badbaadisay ugu yaraan 70 ruux, laakiin dad badan ayaana sheegay tiro intaasi ka badan. Waxay caan ku noqotay magacii loo bixiyay musaydii dadkeeda, sababtoo ah waxay hogaamisay dad badan oo adoomo ahaa ilaa meelaha xorriyadda leh ee waqooyiga. Istiraatiijiyadda iyo qorshaha waxay dadka ku wargelin jirtay inay ka baxsadaan habeenkii Sabtida si wararka looga qariyo warbaahinta maalinta Axadda, taasoo ka dhigtay in qorshaha uu guuleysto. Qalab iyo badbaado si ay u ilaaliso amniga, waxay xiran jirtay bistoolado si ay uga hortagto kuwa rabay inay ku noqdaan meelaha halista ah. Waxayna xitaa daawo siin jirtay caruurta yaryar si ay u seexdaan. Waa xeelado ay ilaalin lahayd amniga safarka. Waxa ay la shaqeysay dad caan ah kuwaas oo ka mid ah taageerayaasha dhaqdhaqaaqa ka dhanka ah adoonsiga. Markii uu dilaacay dagaalkii sokeeye ee Mareykanka 1861 ilaa 1865,
waxay ka caawisay ciidamada inay noqoto sirdoon, kalkaaliso iyo hogaamiye, iyadoona soo aruurisay xog muhiim ah oo ka dhanaa ciidamada. waxay hogaamisay mid ka mid ah howlgallada ugu guulaha badnaa ee dagaalka, taasoo lagu xoreeyay boqolaal addoomo ah, qiyaastii 700 oo addoon, iyadoo taageero heshay. dagaalka xuquuqda haweenka waxay ka qayb gashay sidoo kale dhaqdhaqaaqa xuquuqda codbixinta haweenka, iyadoo la shaqeysay hogaamiyayaal. sanadkii 2017 waxaa la helay sawiradii hore, taasoo ka shaqeysay in mustaqbalkeeda si qoto dheer loo fahmo. magaceeda oo lagu xuso magaalada waxaa lagu xasuustaa magaalooyin, dugsiyo iyo astaamo kala duwan oo suugaaneed, taas oo muujinaysa sida dadka uga tageen raad qoto dheer. doorkeeda sida halyeyga ah waxay xasuusta caalamka laga hayaa ma aha kaliya qofkii dadka ka caawiyay inay baxsadaan, laakiin waxa ay ahayd hogaamiye, sirdoon, dagaalyahan iyo taageera xuquuqda aadanaha. waxayna geeriyootay sanadka markuu ahaa 1913. intii lagu jiray dagaalkii sukeeye waxa ay adeeg ka bilowday inay ciidamada ka caawiso sidii sirdoon, kalkaaliso iyo hagto. xirfadeedii qarsoonaad ayaa noqotay mid qiimo badan u leh howlgalka military, waxayna la shaqeysay dad badan ay u qorsheysay weeraradii 1863, halkaas ay ku hogaamisay markabyo si ay u furato tobanaan ka mid ah beeraleyda dadka adoonka ahaa, lana burburiyo dhul beereed iyo keed muhiim ah oo isticmaaleen cadowgii. howlgalkan oo ahaa mid taariikhi ah ayaa dadka adoonka ah ay ka badbaaday waxa ay ka badan yihiin 750 ruux, taasoo ka dhigtay haweeneydii ugu horeysay oo hogaamisa howlgal military oo guuleysanaya gudaha taariikhda Mareykanka. markii dagaalku dhamaaday waxay ku noqotay New York, halkaas oo ay ka shaqeysay daryeelka dadka waayeelada, caruurta kalaba iyo u doodida xuquuqda haweenka. nolosheeda oo dhan waxay ku noqotay halgan joogto ah loogu jiro cadaalad, xorriyad iyo sinaanta dadka madowga ah iyo dumarka guud ahaan. dhaxalkeeda ayaana wali lagu xasuustaa adduunka oo dhan, iyada oo loogu yeero musaydii dalkeeda, taasoo astaan u ah sidii hal qof oo geesi ah u bedeli karo nolosha malaayiin qof oo raadinaya xorriyad.